wararkii ugu dambeeyey ee caalamka haddii aynu ku horumarno booliska magaalada Berlin ayaa waxa ay gacanta ay ku dhigeen 13 suxufi oo iyagu tabinayay dibadbaxyo halkaasi ka soconayay. booliska magaalada Berlin ee wadankaasi Germany ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in 13 suxufi gacanta lagu dhigay iyagoo tabinayay ayaa la yiri dibadbaxyo la tilmaamay in ay ka socdeen caasimada wadankaasi Jarmalka. suxufiyiintaasi ayaa si toos ah waxa ay u tabinayeen dibadbaxyadaasi ka oo la tilmaamay in looga soo horjeeday adkeenta wadooyinka qaar ee wadankaasi Germany oo ay dibadbaxyaal ay abaabulayeen in dibadbaxyo waaweyn ay ka dhigaan. afhayeenka booliska Martin Holvig ayaa waxa uu suxufiyiintaasi uu ka yiri waxay ahaayeen kuwo la socday kuwa mucaarad ah oo iyagu doonayay in ay sii huriyaan dibadbaxyadaasi. baaritaan ayaa lagu hayaa ayaa la yiri suxufiyiintaasi iyagoo hadda gacanta lagu dhigay iyo cidda maalgelinaysay. waxaa lagu eedeeyay suxufiyiintaasi in ay iyagu ay kicinayeen ama kicinta dadka ay ka qayb qaadanayeen sida hadalka uu dhigay. dibadbaxyadii dhacay waxaa ka qayb qaatay ilaa 300 oo qof. kooxaha badbaadada bii'ada ayaa iyagu waxa ay shaaca ka qaadeen in ay ka doodayaan ayna ka dibadbaxayaan qaar ka mid ah amniga wadooyinka oo si aad loo adkeeyay magaalada Berlin. waxaana dadaaladaasi lagu doonayaa ayaa la yiri mid ay dowladdu ay ku xoojinayso isku socodka dadka maadaama cudurka COVID-19 gacan adaga uu ku hayo wadankaasi Germany. madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu isagu kulanka gaashaanbuurta NATO ka sheegay xukuumadda Washington inay garab taagan tahay xulafadoodii. madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu xaqiijinayo madaxda gaashaanbuurta NATO in xukuumadda Washington ay si weyn ay u taageerayso qodobka 5 ee heshiiskii gaashaanbuurta NATO ka oo xusayay in si wada jir ah looga jawaabo weerar waliba oo lagu soo qaado dowladda xubin ka gaashaanbuurta NATO. jariidada Washington Post ee ka soo baxda wadankaasi Mareykanka ayaa waxa ay tilmaantay Biden waxa uu kulanka ka socda magaalada Brussels uu isagu ka sheegay in mar kale uu ku celinayo in uu taageeri doono una xoojinayo qodobka 5 ee heshiiska gaashaanbuurta NATO ka oo xusaya in si wada jir ah looga hortago cid waliba oo ku soo duusha dowladaha xubnaha ka NATO. waxa uu sidoo kale uu wargeysku leeyahay waxa uu Biden uu la kulmayaa madaxda midowga Yurub si uu uga hadlo arrimaha ku saabsan in dowladda Mareykanka ay Yurub ay kala shaqeyn doonto dhibaatooyinka caalamiga sida weerarada dhinaca elektaroonigada ama internetka ka oo dhowr dowladood oo Yurub ah ay la kulmeen. waa Sri Lanka haddii aynu eegno 4 qof ayaa la xaqiijiyay in ay geeriyoodeen 7 kalena waa la la'yahay daadad xoogan oo dhoobo wata wadankaasi Sri Lanka ku dhuftay. daadadkaasi ayaa waxaa la tilmaamayaa in ay ka dhasheen roobab xoogan oo ka da'aya wadankaasi Sri Lanka. 4 qof ayaa geeriyootay 7 kalena waa la la'yahay. ilaa 5,000 oo qof ayaa la xaqiijiyay in ay barakaceen sida mas'uuliyiintu ay tilmaameen. roobabkaasi ayaa waxa ay ka da'ayaan ilaa 6 gobol oo dowladdaasi jasiiradda yar ee badweynta India ku taal ay hadda ay la kulmayso. biyaha ayaa qaar ka sara maray guryaha. sidoo kale waxa ay baabi'iyeen dalagyo beera ah oo bariis ah waxaana sidoo kale ay keentay in biyahaasi wadooyinka ay buux dhaafiyeen. 2 qof ugu yaraan waa la xaqiijiyay in ay geeriyoodeen dhoobo soo go'day. sidoo kale waxa ay xukuumaddu ay tilmaantay ilaa 7 qof in daadadkaasi iyo dhoobadaasi soo go'day lagu laayahay. mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen oo la hadlay warbaahinta gudaha in ay iyagu ay bixin doonaan xaalad degdeg ah oo dadka lagu wargelinayo in ay feejignaan xoogan ay galaan maadaama roobabku ay aad ay u xoogan yihiin. guri ay ku jireen qoys ka kooban 4 qof oo aabe hooyo iyo sidoo kale labadoodii canug waxa qaaday amaba daboolay dhoobo soo go'day. gurigaasi oo ku yaala deegaanka Kigali oo fogaan 85 kilomitir bariga caasimadda Colombo kaga beegan.
warbixinadii ugu dambeysay xukuumaddu waxa ay ku sheegtay in ka badan 5,000 oo qof in si kumeel gaar ah loogu sameeyey meelo ay degaan, maadaama la tilmaamayo in ilaa iyo 500 oo guri uu saameyna uu ku yeeshay roobabkaasi xoogan ee ka da-aya jasiiradaasi Sri Lanka, sida ay soo xiganayso wakaaladda Associated Press. waa dowladda Mareykanka waxaa la soo sheegayaa in dhulgariir cabirkiisu yahay 5.3 cabirka dhulgariirada uu ku dhuftay gobolka California oo dhaca koonfurta waddankaasi Mareykanka. hay-ad dhinaca dhulgariirada qaabilsan ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxa ay tilmaantay in la dareemay dhulgariir aada u xoogan oo cabirkiisu yahay 5.3 cabirka dhulgariirada, waxaana la tilmaamayaa in koonfurta waddankaasi amaba gobolka California waddanka Mareykanka uu ku dhuftay. dhulgariiradaasi aadka u xoogan ayaa sidoo kale laga dareemay meelo u dhow xadka Mareykanka uu Mexico uu la wadaago. lama soo sheegin wax khasaare ama dhaawac ah oo dhulgariirkaasi uu geystay. 2 dhulgariir ayaa ka horeysay oo jimcihii la dareemay oo 5.9 cabirka dhulgariirada ah, kaa oo si weyn looga dareemay xeebaha koonfurta Oregon iyo sidoo kale waqooyiga gobolkaasi California. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay sheegaysaa in dadka qaarkood ay walaac xoogan ah ay ka muujiyeen dhulgariirkaasi aada u xoogan. meelaha qaar waxaa la tilmaamayaa dadku inay bilaabeen in ay kasii barakacaan. saraakiil u hadashay maamulka gobolkaasi California ayaa waxa ay shaacay ka qaadeen in ilaa hadda aan la soo warinin wax dhibaataha ama khasaaraha uu sababay dhulgariirkaasi. Mexico haddii aynu fiirino shaqaale iyagu qodayay dhuxusha ayaa waxaa la tilmaamayaa in uu ku go-ay godkii ay ka qodayeen dhinacayo waqooyiga waddankaasi Mexico. 6 qof oo ka mid ah shaqaalahaasi ayaa dhulgo-aasi lagu leeyahay. ilaalada difaaca rayidka ee waddankaasi Mexico waxa ay tilmaameen in mid ka mid ah meydka shaqaalaha iyagoo dhuxusha wax ka qodayay la helay. waqti badan oo uu qaatay baadigoobka 6 qof ayaa ilaa hadda lagu leeyahay gobolka dhuxusha laga qodo ee waddankaasi Mexico ee Coahuila ee dhinaca waqooyiga dhaca. wasaaradda shaqada ee waddankaasi Mexico waxa ay tilmaantay in wixii dhacay ay u muuqdaan dhulgo uu sababay daadad rabab xoogan oo ka dhashay oo ka da-aya waddankaasi Mexico. madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dhacdadaasi ay tahay musiibo qaran. waxaa dhowr jeer dhacday goobaha dhuxusha laga qodo ee waddankaasi Mexico in dhibaato noocan oo kale ay ka dhalato. sanadkii 2006 bishii Febraayo 19 sidan oo kale waxa uu godadkii ay dhuxusha ay ka qodayeen uu la go-ay ama uu la dumayba ilaa iyo 65 ka mid ah shaqaalihii iyagu dhuxusha qodayay. keliya waxaa la helay 2 meyd. xuutiyiinta waddanka Yemen ayaa waxa ay shaacay ka qaadeen inay bartilmaameysadeen saldhigga Boqor Khalid ee dhinaca cirka ee ku yaal magaalada Qumays Mushiid ee waddanka Sacuudi Carabiya. diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ayay tilmaameen in lagu bartilmaameysaday saldhiggaasi. afhayeenka rasmiga ee xuutiyiinta Cornel Yaxya Sariic ayaa waxa uu sheegay in subaxnimadani axadda ah ay bartilmaameysadeen saldhigga dhinaca cirka ee Boqor Khalid ee waddankaasi Sacuudi Carabiya. inkastoo ilaa hadda aysan jirin wax khasaare ah oo lasoo wariyey, Yaxya waxa uu bartiisa Twitterka uu kusoo sheegay in diyuurad nooca 2K la yiraahdo aan duuliyaha lahayn ay ku bartilmaameysadeen garoonkaasi. isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminayo ayaa iyagu waxa ay dhankoodii ay sheegeen in ciidamadoodii ay ka hortageen diyuuradaasi oo ay soo rideen ka oo ay direen xuutiyiinta waddankaasi Yemen. dhowr jeer waxaa dhacday in xuutiyiintu ay diyuurada aan duuliye lahayn ay ku bartilmaameysadaan garoomada diyuuradaha ay ka kacaan waddankaasi Sacuudi Carabiya, gaar ahaan kuwa militariga ee waddankaasi.